Ani waa fahmi waye youtube-ka meesha u socdo iyo meel kasoo socdo. Walaaladeedii meeshaas ayaa waxaa leenahay in liska daayo dagaalka way fiican tahay. youtube baa loo imaaday in lis dagaalo maanta dhan sidii ciyaalkii laba qof maxaa isku dagaalaysiin iska dhaafa dagaalka. Shirkadda youtube oo noqotay meel isku dagaalo. youtube aniga waxaan ka ogahay qofka inuu soo gudbiyo fikradihiisa iyo wuxuu uu fikrada iyo dadka wuxuu u faa'iideynayo. laakiin youtube-ka haddii uu mar qofka la dagaalo shirkadda youtube-ka maxay ka aamini kartaa? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Channel-ka aa hadda daawanaysaan waa Soomaali Tijaabo 11 ayaamahan waxaan ahay mashquul laakiin hadda waa soo laabtay alxamdulillaah. barnaamijkani sida hore ayuu u socon doonaan wax isbedelana ma lahan. insha allahna waxaan gaarnay 20,000 oo subscribers. asxaabta waxaan rajeynayaa inay ii hambaliyeyn doontaan waxaana igu soo hambaliyeyn doontaa danka hoose ee kumatiga. haddaa ii soo hambaliyeysid fikradaada waa qaadanaya loofna waa kuu saaraya channelkaadana subscribe waa saara fadlan ii soo hambaliyey. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo youtube oo noqotay meel isku dagaalo. horta Soomaalida aqli ma leeyihiin ama ma lahan waa la yaabanahay. youtube-ka dadka ajaanibka ay leeyihiin weligooda youtube ajaanib ay leeyihiin ku arkin dagaal. laakiin youtuberada Soomaalida waxaa badanaa lagu arkaa dagaal. youtube-kan qofkan hadduu uu leeyahay youtube waxaa loo talagalay qofka inuu kusoo gudbiyo fikradihiisa. laakiin youtube haddii lis dagaalo sida ciyaaladii hadda niman waaweyn waxaa arkaya xataa sheeganaya sheekh astaghfirullah ugu dambaabi karin niman waaweyn waxaa arkaya la dagaalsan qof la dagaalsan waxay la dagaalayaan gabar ama qof kale ay la dagaalayaan. macnaha shirkadda youtube ma noqotay meel isku dagaalo. youtube waxaa loo baahan yahay qofka inuu dadka ummadda Soomaaliyeed wax u faa'iideeyo. dagaal waxaa ka rabtaa youtube ayaa waxay noqotay meel isku aflagaadeeyo maxaa la dhihi jiray wixii la sheego oo lis youtuberada ajaanibta isdagaalan badan. hadda fiir ajaanib waxaa ka wada youtuberada gaalada ama dadka kaleba. qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu dad caanin oo dad aflagaadeerin. youtube-ka waxaa loo joogaa si nidaam nabad youtube-kana waxaa loo joogaa dadka taageerahaada inaa wax fiican usoo gudbisid. youtube haddii aad taageerada wax usoo gudbi wayso adigana taageeraha way ku nacayaan. mar inaa isdagaashiino qofkaba qof wax ka sheega ma fiicno. sidaas ayaan igu dardaarmaya fadlan iska dhaafa dagaalka si fiican youtube-ka uga shaqeysta. ayaan ilaa hadda dadka isdagaalsan ee youtube isku dagaalsamada oo inaa sheego marabi laakiin waxaa leenahay walaalayaalow waleysa amran naga dhaafa dagaalka youtube-ka u jooga si nabad ah dadka taageerahana wax fiican usoo gudbi. wassalaamu calaykum.